kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhawaada wararka warbaahinta Keyd Media. Qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah faragelinta farmaajo ee guddiga doorashada beelaha banaadiriga waa sidee xaaladda koonfurta gobolka Mudug muxuu salka ku hayaa safarka Rooble ee Kismaayo iyo waliba dagaal xoogan oo dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad wararka warbaahinta Keyd Media ku maqli doontaan. isku soo noqod wanaagsan mar kale saaxiibayaal waa Arbaco taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Julaay sanadka 2021 haddaanu ku bilowno markaan qodobka horeey warkeena faragelinta farmaajo ee guddiga doorashada beelaha banaadiriga ah xog ay heshay Keyd Media online ayaa sheegaysa in dib loo dhigay doorashada kadib markii uu soo farageliyay xafiiska farmaajo oo la sheegayo inuu wato shakhsiyaad isaga taageersan taasoo la isku fahmi waayay odayaasha iyo waxgaradka beesha ayaa codsaday in guddiga farsamada ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ay soo farageliyaan arrintan oo ay wax ka qabtaan faragelinta fila Soomaaliya ku hayso doorashada beelaha banaadiriga ah waxayna dalbadeen in loo madax banaaneeyo arrimaha doorashooyinkooda farmaajo oo ku caan baxay inuu maro nidaamka awood qaybsiga ee Soomaaliya ka jira ayaa la sheegayaa inuu wato shakhsiyaad aan ka soo jeedin beeshan isla markaana uu doonayo inuu talada iyo xaq beesha u farmaroojiyo reer kale guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada oo maalmihii la soo dhaafay guddoomiyaal loo doortay ayaa la sheegayaa inuu farmaajo lug ku lahaa oo shakhsiyaad uu isaga wato ay ka soo baxeen meelaha qaar taasoo ay walaac ka muujiyeen saamiileeda siyaasadeed ee Soomaaliya maanta ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada guddoonka maamulaya doorashada beelaha banaadiriga ah kuwa oo xitaa aan kuraas badan ku lahayn golaha shacabka iyadoo isha lagu hayo shakhsiyaadka la soo dooran doono qaybihii hore wararka warbaahinta Keyd Media ee la socotaan markaana Mudug xaaladda deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug ayaa saaka degan kadib markii shalay ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug oo iskaashanay ay al-shabaab ka farmaroojiyeen Bacaadweyn iyo toolooyin hoos yimaada wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in al-shabaab ay culays xoogan soo saareen Galmudug 6 bilood ee la soo dhaafay gaar ahaan magaalooyinka Wisil iyo Bacaadweyn wuxuuna xusay in hadda ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanadaas lana wareegeen ciidamada Galmudug dhowr deegaan oo ay kamid yihiin Sabeeno Gowrac iyo Qaycad ayaa dagaalo ka dhaceen gelikii dambe shalay ayeeshee saaka wax dagaal ah lagama soo sheegin deegaanadaas al-shabaab ayaa la sheegay inay dib u la wareegeen Bacaadweyn ayeeshee waxaa wax kama jiraan ku tilmaamay arrinta qaar kamid ah saraakiisha Galmudug oo la hadlay Keyd Media online Fiqi wuxuu sheegay in howlgalkan lagu xureynayo deegaanada Camaara Caad iyo Xaradheere kuwaasoo in muddo ah gacanta ugu jira al-shabaab isla markaana guud ahaan labada gobol uu ka bilowday howlgal isku xiran tan iyo markii xafiiska yimid madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor ma jiro wax howlgal ballaaran ah oo maamulkiisu ku qaaday al-shabaab waxaana bilihii la soo dhaafay si daran looga soo dayrinayay amniga Mudug iyo Galgaduud qaybihii dhexe wararka warbaahinta Keyd Media ee dhageysanaysaan markaana dagaal xoogan ayaa dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda wararka ka imaanaya degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in iskoorimaad muddo socday oo u dhaxeeyay ciidamada nabad sugidda degmada Doolow iyo kuwa dawladda federaalka ee dhamaadkii sanadkii hore laga qaaday Muqdisho uu ka dhacay gudaha magaaladaas sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah dagaalka ayaa ka dhashay muran soo kala dhaxgalay labada dhinac waxaana ka dhashay khasaare xoogan ila wareedi ayaa ku waramay in israasaaseynta labada ciidan oo muddo socotay ku dhaawacmay taliyaha ciidanka nabad sugidda ee degmada Doolow kaas oo lagu magacaabo Xasan Cibaad iyo askari ilaalo u ahaa ilaa iyo hadda lama shaacin waxa sababay muranka keenay israasaaseynta labada ciidan dhaxmartay mana jiraan wax wara oo ilaa iyo hadda ka soo baxay laamaha amniga degmadaas oo ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ciidanka dawladda dhaxmara ayaa inta badan soo noqnoqda waxaana khubarada amniga ay sheegayaan intaasi ugu wacan tahay kala qaybsanaanta ciidanka ee uu abuuray farmaajo tan iyo markuu xilka madaxweynaha qabtay bilowgii 2017 Doolow waxay kamid tahay deegaanada kooxda farmaajo ka farmaroojiyeen maamulka Jubbaland waxaana hadda magaalada ku wada sugan ciidamo kala duwan oo qaarkood dhawaan laga qaaday degmada Beled Xaawo qaybihii dambe wararka warbaahinta Keyd Media ee markan isla soo gaarnay muxuu salka ku hayaa safarka Rooble ee Kismaayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland
Roble ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo kusoo dhaweeyay isaga iyo wafdigiisa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulkiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas. Ujeedka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Kismaayo ayaa wuxuu yahay sii xoojinta dadaalada doorashooyinka dalka ka dhacaya, gaar ahaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka jira gobolka Gedo oo uu Farmaajo doonayo inuu talada doorashada gobolkaas la hoosgeeyo xafiiskiisa. Roble ayaa la fahansan yahay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu kala hadli doono dardargelinta doorashooyinka iyo khilaafka arrinta gobolka Gedo oo ah ubuucda khilaafka Jubbaland iyo Farmaajo. Sidoo kalena wuxuu la kulmi doonaa Roble qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas. Waa socdaalkii ugu horeeyay ee ra'iisul wasaare Roble ku tago Jubbaland tan iyo markii loo magacaabay xilka. Ammaanka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaana si weyn loo adkeeyay. Roble ayaa wada dadaal uu ku doonayo dardargelinta mas'uuliyaddii loo xil saaray ee qabashada doorashada iyo amnigeeda. Yeeshee waxaa la fahansan yahay inuusan weli u madax bannaanayn howshiisa ee uu ku daaban yahay Farmaajo. Wararkii warbaahinta Keyd Media waa naga intaa, sidaas iyo nabadgelyo.